أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا لهي واد السلامي ولا شنميرة عاد بعد نسود وينه ما شاء الله ولا سود واد إن شاء الله إن هو بان إذنكم مقنا ولا لهي إن شاء الله سود عين إلهي صوف إن شاء الله marka maxaa yiraahdaa maanta waxaan qaadanaynaa ardada commentiga quruxda badan iyo suqraalaad baad fahansantiin insha Allah soo dhawaada nagu cusubtiin soo dhawaada insha Allah hore hadaan noo joogteen soo dhawaada insha Allah marka maanta waxaan qana synonym waxaan wasaan idin sheegay book baan idin bilaabay hadda oo macnaha hoos ka bilaabana ilaa iyo kor aan wadi doono insha Allah so this is part of the book as you ka socda insha Allah marka synonym maxaa yiraahdaa a synonym is a word that means almost the same thing as another word. So a synonym is a word that means almost the same thing as another word. Example, small, little, jump, leap. So labadan isleeyihiin. Okay, and let's come back and know معنى قيبتان إن شاء الله. Synonym is waxay tahay a word eray that means macnaheedu uu yahay almost ku dhawaad the same thing mid ku mid ah is as another word eray kale macnaheedu waxaa laga wada erayga synonym means wixii waa isku micno weeyaan ama waa micno aad isu saaran iyo micno isku dhawaada waa inta afan waxa laga erayada qaarkood micnahoodii exactly ina heli weys marka ma oo macnaha micnihii u dhow aad heli laakiin waxaad qaadanaysaa micnihii uu ku dhow ayaad qaadanaysaa insha Allah daas kale synonym waa la wax isku micna insha Allah isku qoritaan ma aha faadeer waa qoran laakiin maxay raada waxa laga rabaa in ay only ay noqdaan ama micnahooda isku mid noqdaan ama ay isku dhawaadaan daas kale synonym halkan oo kale small little wax yar yaraan small wax yar waa mugta little nasaasoo waa wax yar little jump body soma leap saasoo kale leap in fact jump leap wuxuu oo soo noqon kara tallaabsasho ma fahmin uu noqon kara tallaab means hore u soco ma garatay oo kale dak small little jump leap okay now eraydaana halkayda ku soo qora afraid cabsi afraid is called afraid erayadan badan erayan hore u soo dhigana waa insha Allah I hope inaad xasuusataan huge waa wax weyn person waa qof home waa guri stories waa sheekooyin unusual wax aan caadi ahayn marka insha Allah yaa middle waa u dhaxeeya middle dhexda laakiin waxaan ka baq dhexda daaqata dhexdeena inaad u qaadataan ma aha middle waa wax laba wax dhexdooda middle in the middle okay bisha dhexdeedu noqon karaa laba kaar dhexdoodu noqon karaa it's called in the middle okay so noisy is a book marka waxaan idinka rabaa insha Allah write a synonym for each word in the box maadaama eraydan hadda kor idin soo dhig waxaan rabaa in aad maxay raahdaa markaan idin akhri qaybtan inaad damisaan dan aad idin ka shaqaysaan bal aan fiiri bal maalin walba casharkan soo dhiga ma idin soo mara ma idinka gudbaa mise waa actually waa baranaysin marka waxa imtixaan adiga iska qaadaysid bal oo ogaanis armaa waxmaan bartay mise wixii waa isoo galeen waa iga bixeen oo kaliya marka insha Allah marka qaarkood markaan cashar idin soo dhigin casharadii hore ku naqda inta December laga soo bilaab ilaa waxaan casharo soo wada ana joojino habeen walba aan soo dhigay oo jimcaha aan ka ahayn aan soo dhigay marka insha Allah markaan cashar soo dhigin casharadii hore aad kusoo noq ama review kusoo bi waxa hore u barat ma fahanti insha Allah marka write a synonym for each word in the box erayadan box ku jira oo soo socdo ayaan waxaan ka rabaa inaad synonym u raadsid marka kuwan iyo kuwan waa isku micno marka waxaan rabaa in aad match ka dhigtid oo aad kee halkan gelisa kee halkan mid baa inta ka soo qaadanaysaa marka erayadani la micnihiin marka waxaan ka rabaa inaad soo qaadatid halka gelisid halka hadaad xasuusatid casharadan horaan soo dhignay erayo badan aan hore idinku soo dhigay marka waxaan rabaa soo qaad halkan geli bal aad arag maxay raahdaa aqoontaada halkii taagan tahay ma garatay in wax soo baratay erayadan ay ku soo mareen oo aad xasuusto in kale insha Allah marka homeworkeedu waa ka weeyaan insha Allah marka aad joojisid aad qortid kadib video hore u wad marka jawaabta ma hoos idinku soo qoraya I think that's better in jawaabta hoos ku soo qoro
aad iska sax qof walba isaga iska sax ma garata insha allah marka afraid waa hadda afraid cabsida huge wax weyn person qof home guri stories sheekooyin unusual waxaan caadiyan waa idin soo sharxay middle waa dhexda laba wax dhexdooda noisina waa buuqa marka kuwan idinma micneen haddaan micneeyo waad garanaysaa waxaan rabaa inaad idinka soo baartaan ama aad wixii idin hore idinku soo dhigaad soo aragtaan insha allah marka tails okay this called large center scared human different house loud erey kaliya aana soo dhigin waa kan tails laakiin kan waan soo aragnay large waa idin soo dhigay center waa soo dhiganay scared waan soo dhigay loud waa idin soo dhigay house waa idin soo dhigay different waa idin soo dhigay human waa idin soo dhigay so marka insha allah markaad kuwan qaadid oo aad mid walba keentid halkiisi aad keentid marka kan kii soo hara wuxuu noqonayaa kan ayuu noqonayaa insha allah idinma macnaynaya intaan maadaama micnahoodii waa kanaha waxaan rabaa inaad idinka isxilqantaan oo aad ogaataan halkan soo gelisaan insha allah markaad boos garaysid oo aad ka shaqaysid dan jawaabta haddaa intusaya insha allah jawaabta is right here jawaabta waa idintana insha allah person waa maxay human person waa qof human ku dhawaad waa human qof bini aadana person maaragta insha allah maxaa lagu yiri wixii ina aad isku micnayn iyo inay isku dhawaadaan person waa maxay waa human tales waa stories waa sheekooyin tales mujada jamc inuu yahay mujada jamc inuu yahay tales story markuu yahay is taa ka baxaysa why ma fahmino story waa one hal sheeko laakiin maadaama tales oo yahay stories uu noqonaya sheekooyin large huge waa wax weyn unusual different waa wax different wax ka duwan waxaan caadi ahayn ama ka duwan noqon home and house waa guri weeyaan house middle or center waa isku mid labu dhexda in the middle labu dhexda ama center loud noisy buuqa afraid scared waa cabsida afraid scared mujada afraid and scared waa cabsida insha allah taas waa jawaabta insha allah walaalahay qari caafimaad baa idin rajeynaa insha allah assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu